الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ثم أما بعد إن شاء الله تعالى برنامجكني أن ugu talagalnay bisha Ramadaan mowduuceeni ahaa fiqh siyaam maantana in sha Allah ta'ala xalqadeenu waxay noqon doontaa fadlu shahri Ramadaan fadliga ay leedahay bishan barakaysan iyo xadiista nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi sida nabigu uu uga warramay fadliga iyo ajarka ku jira bishan ruuxa muslimka ah inuu soomo iyadoo ay waajib tahay haddana oo waajibnimadeedii aynu ka soo hadalnay ayaynu dhanka kale fadliga iyo ajarka uu helayo iyo fadaa'isha bishan ku jirtaan ka hadli doonaa in sha Allah ta'ala haddii rabbi subxaanahu wa ta'ala bixawlihi wa qudratihi uu nagu simo nafta uu nagu simo qadarkaas aan kalimaadkan jeedinayno waxaa fadli ugu filan bisha Ramadaan waa bishii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala quraanka uu soo dejiyay kalaamkiisa soo dejintii rabbi subxaanahu wa ta'ala quraankiisa uu soo dejinayay waxa uu u doortay bisha Ramadaan ayuu bilaha kale uga doortay waxa uu doortay bisha Ramadaan 10ka ugu dambeeya habeen ku jira oo laylatul qadri la yiraahdo inuu soo dejiyo sadarteed baa rabbi wuxuu quraanka uu ku yiri shahru ramadaan alladhi unsila fihi alquran hudan linnaasi wa bayyinatin min alhuda walfurqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu bisha ramadaan waa bisha Allah subhanahu wa ta'ala quraanka uu soo dejiyay xaalu quraanku oo khalaa'iqda hanuun iyo bayaamin iyo inuu wax u cadeeyo iyo xaq iyo baadilka inuu u kala saaro xaalu quraanku yahay ba Allah subhanahu wa ta'ala wa tarbiyan li subhanahu wa ta'ala inna ansalnahu fi laylatin mubarakah quraanka waxaan soo dejinay ba rabbi subhanahu wa ta'ala habeen barakaysan baan soo dejinay inna ansalnahu fi laylatil qadri وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر هبينك إلهي سبحانه وتعالى الله أسودتي قرآن كان أسودتي وشيء كتوسنا يفضل بشهر رمضان أي لا ضحي حكى النبي أن صلوات الله والسلام عليه حديث صحيحة والنسائي بيهقي أي ورنا يا نحن النبي عليه صلوات الله والسلام عليه أتاكم شهر رمضان شهر مبارك وحايدين بشي رمضان بايدين صوغلي الله سبحانه وتعالى أوديسا يا قدرديسا أودين قارسيي عمري يا وقتي بونا إذن كو قارسيي كاسا رسولك وحولي شهر مبارك وبالبركيسا وحنبي يقول صلوات الله وسلامه عليه تغلق فيه أبواب الجحيم وحال حرحرا بشان مركا أي دلتي كون قطبة وحال حرحرا البابة الجحيم إيا البابة النار تال حرحرا طيب وتفتح فيه أبواب السماء وحال فرفرا البابة السماء أيال فرفرا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه samadu waa meeshii naxariistu ay ka soo degaysay samadu waa meeshii amalka loo koryeelayay
markaasaa nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayh wuxuu yidhi watuqlaqu fiihi abwaabu ljaxiim watuqallu fiihi maradatu shayaadiin waxaa la silsiladeeyaa waxaa la xidhaa shayaadiinta kuwoodii madaxa adkaa, kuwoodii khibradda badnaa, kuwoodii gaangiistarada ahaa ee dadka baadiyeyn jiray. markaasaa nebigu salawaatullaahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi lilaahi fiihi leylatun khayrun min alfi shahr. ilaahay waxaa ugu sugnaaday bisha ramadaan rabbigeen wuxuu dhexgeliyey habeen 1000 bilood ka khayr badan, waa habeenka leylatulqadriga loo yaqaano. 83 sano oo cimrigaagii iyo taariikh nololeedkaagii u dhigma ayaa cibaadada iyo daacada haddii ilaahay habeenkaa uu ku waafajiyo aad samaysaa ay u dhigantaa. waxaa nebigu leeyahay salawaatullaahi wasalaamu calayhi man xurima khayraha faqad xurim. bisha ramadaan khayrka iyo barakaadka ay xambaarsan tahay ruuxii laga xarimo waa ruux ayaan darro iyo nasiib darro ay ku dhacday, waa maxruum, waa ayaan darane nasiib darraa ku dhacday. nebigu salawaatullaahi wasalaamu caleyh wuxuu leeyahay man xurima khayraha faqad xurim. bishaa khayrkeeda ruuxii laga xarimo khayr iyo wanaag oo dhan waa laga xarimay ayuu nebigu yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayhi. waxaa xadiis kale uu nebigeennu salawaatullaahi wasalaamu calayhi ku leeyahay bishaarada iyo dhambaalka wuxuu bilaabi jiray. tirmidi iyo nasaa'i iyo xaakim ayaa warinaya, waana xadiis saxiixa. habeenka koowaad ee bisha ramadaan ay dhalato ayuu dhambaalka iyo fariinta uu gaadhsiin jiray nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi saxaabadiisa ridwaanullaahi calayhim jiilulqur'aan ayuu gaadhsiin jiray dhambaalka. idaa kaana awalu leylatin min ramadaan, markay tahay habeenka koowaad ee bisha ramadaan, sufidat shayaadiin wa maradatu ljin, waxaa la silsiladeeyaa shayaadiinta iyo jinko kuwooda madaxa adag ayaa la silsiladeeyaa. waxaa nebigu yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayhi waquliqat abwaabu nnaari falam yuftax minha baab. waxaa la xidhaa albaabada naartaa la xidhxidhaa, 7 albaab ee naarta ayaa la xidhxidhaa, albaab ka midana lama furo bisha ramadaan inta lagu jiro. ilaahay subxaana wa tacaala bimanihi wa karamihi wa ixsaanih wuxuu kuu fududaynayaa ruuxii mu'minka ahaa ee qalbigiisa iimaanku uu ku jiray iyo dareenku uu ku jiray, ayaa rabbi subxaana wa tacaala wuxuu u fududaynayaa asbaabihii iyo wadooyinkii uu ku gaadhi lahaa dariiqa rabbi subxaana wa tacaala, xidhiidhka rabbigiina uu ku hagaajin lahaa. asbaabaha ka hor istaagi lahaa dariiqa rabbi subxaana wa tacaala iyo rabbi subxaana wa tacaala xidhiidhka ruuxu uu la leeyahay inuu hagaajiyo, asbaabihii oo dhanna waa laga xidhay. nebigeennu wuxuu yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayhi wafutixat abwaabu ljannati falam yuqlaq minha baabun. waxaa la furfuraa albaabadii jannadaa la furfuraa, albaab ka midana 8 albaab ee jannada albaab ka mida lama xidho bisha ramadaan. waa muhayi addoommadii ilaahay subxaana wa tacaala iimaanka u hibeeyey baa la rabaa bishaa wixii macaasi iyo cisyaan iyo gef ay galeen in lagu nadiifiyo oo iyagoo saafiya ay ilaahay la kulmaan subxaana wa tacaala, ay ka qayb galaan martiqaadka rabbi ee qiimiga badan subxaana wa tacaala, ay noqdaan wufuud araxmaan. yowma naxshuru almuttaqiina ila alraxmaani wafda wanasuuqu almujrimiina ilaa jahannama wirda. baa la leeyahy subxaana wa tacaala waa maalin addoommadii mu'miniinta ahaa, yacni cibaaduraxmaankii baa loo xashrinayaa xagga rabbi iyagoo wafdiya. ilaahay bay wafdi u yihi, allaa soo dhoweynaya, malaa'igtaa soo dhoweynaysa jannada iyo deegaankoodii iyo guryahoodii
iyo martiqaad qiimi badan baa loo diyaariyey waxaa nabigeenu yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayh wayunaadii munaadin yaa baaqiya alkhayri aqbil wayaa baaqiya ashari aqsir xagga ilaahay waxaa ka dhawaaqaya mid dhawaaqaya oo fariin gaadhsiinaya khalaa'iqdii wuxuu leeyahay war midkan khayrka ku baaqayo war midkan khayrka raadinaya dalbayow khayrkan midka doonayow soo qaabil khayrkii asbaabihii khayrka iyo wadooyinkii iyo jidkii dariiqa khayrka aad u qaadi lahayd ilaahay waa kuu fududeeyay subxaana wa tacaala kaa waxaa ka soo horjeeda ruuxa aan wanaaggu anficin addoonnimada rabbi subxaana wa tacaala rabbi inuu addoon u noqdana ay anfici weyday macaasida iyo cisyaanka shaydaanku uu u qurxinayo wuxuu leeyahay nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi malagaasi wuxuu odhanayaa yaa baaqiya ashari aqsir midkan sharka dalbayow gaabso dunuubta iyo macaasida waa la laalaabaa bishan ramadaan waxaa nebigu yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayhi yaa taaliba alkhayri halumma riwaayada nasaa'i midkan khayrka dalbayow soo dhowow soo qaabil khayrkii wadooyinkiisa iyo jidadkii khayrka dariiqii lagu gaadhayay waa laguu sahlay oo waa laguu fududay yaa daaliba ashari aqsir sharka midka dalbayow gaabso markaasaa nebigu salawaatullahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi walilaahi cutaqaa'un min annaari wadaalika kulla leyla ilaahay bishaan ramadaan waxaa u sugnaaday dad uu qoortooda naar uu ka xoreeyo cibaadu araxmaan ayuha almu'minuun sow dhammaanteen ma wada jeclin qoorteenna inuu ilaahay naar ka xoreeyo subxaanahu wa tacaala walilaahi cutaqaa'un min annaari wadaalika kulla leyla habeen kasta oo bisha ramadaan marka qoraxdu dhacdo malaa'igtu liis bay ilaahay subxaanahu wa tacaala u gudbisaa addoommadii mu'miniinta ahaa qaybo badan oo ka mida ayaa qoortooda naar laga xoreeya habeen walba qayb baa laga xoreynaya waxaa ka sugan nebigeenna salawaatullaahi wasalaamu caleyh inuu yidhi taasina waa habeen kasta waxaa lagu diyaarinayaa marka asbaabtii jannadii baa lagu soo dhoweynaya axaadiistani waxay waafaqsan yihiin qowluhu tacaalaa hadalkii rabbi subxaanahu wa tacaala uu yidhi وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد الله وحده سبحانه وتعالى جندي با وحلو سودويي الله يقانكي mu'miniintii qowlkooda iyo ficilkooda iswaafajiyey cibaadadooda nebi maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayhi wixii uu u jideeyey iyo qaabkii uu yidhi ilaahay ha loo caabudo alle uu caabuday subxaanahu wa tacaala markaasaa ilahi wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala jannadaasoo mid aan ka fogayna haadaa maa tuucaduuna likulli awaabin xafiid taasi waa tii loo yaboohay jannadii iyo martiqaadkii rabbi subxaanahu wa tacaala uu u yaboohay qof kastoo noqosho badan oo xifdin badan soohdinta iyo seeraha alle subxaanahu wa tacaala u ilaalin badan marka khalaa'iqda aad dhex joogto iyo markaad adiga iyo rabbi subxaanahu wa tacaala yacni goonni aad isla noqotaan oo rabbi mooye cid kaloo kuu jeedaa aanay jirin ruuxa mu'minkaa inuu isku si ilaahay uga baqaa la doonaya subxaana wa tacaala weliba markaad aan khalqiga kuu jeedin baa la rabaa cabsida inaad sii badiso man khashiya araxmaana bilqaybi wajaa'a biqalbin muniib udkhuluuha bisalaam dalika yowmu alkhuluud lahum maa yashaa'uuna fiiha waladaynaa masiid baa la leeyahay subxaana wa tacaala waata nabigeenu leeyahay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi maa ra'aytu mila annaari naama haaribuha naarta wax la mida ma arag
ruuxii naar ka carara oo ka baqa oo camalkii uu naar kaga badbaadi lahaa diyaarsada waa seexdaa baa nebigu yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayh walaa mithla aljanna naama daalibuhaa jannadoo kalena ma arag yacnii waxaa seexanaya ruuxa dalbaya ruuxii dalba oo camalkii daacadii ku guulaysta hurdo iyo raaxo ayuu helaya tirmidi iyo dabaraani iyo keyrkood baa warinaya waa xadiis saxiixa xadiiska ibnu maaja يعني في سنن كورني صحيحة وحنبي قال لي صلوات الله والسلام عليه إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر بشن ويصو حاضرتي ويدين صوق الشيء إلهي با إذن وافتيه سبحانه وتعالى إنه نولل إذن كو قارسيو وحانا كوجر هبين كم بلوت كخير بدن فرصة لو باهين لغا فايديستو النبي يقول صلوات الله والسلام عليه من حرمها فقد حرم الخير كله بشان روح العبادة إضاعة إلهي سبحانه وتعالى آن وافتشين خير أردن والله حرم فقد حرم الخير كله أيان درني نصيب دره أيا كل عضي والروح أيان درن كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه وحده ولا يحرم خيرها إلا محروم بيشان خير كذا لقى محرمه لقى ما قد يردفت بيشان أي حنبارسن تهي إلا الروح أيان دره ينصيب دره أي كل عظيم وياني حكم إذا فضل بشهر رمضان أي ليه هاي الله سبحانه وتعالى أضمها الصائمين تي ألا درتي أصو صومي waxaa ilaahay ku abaalmarinayaa albaab jannada ka mida oo loo calaamadiyey oo si gaara iyaga loogu gaar yeelay oo baabu rayaan la yidhaahdo ayay jannada ka geli doonaan macnaha waxaa ku tusinaya xadiiska sahl ibnu sacd asaacidi bukhaari iyo muslim fi saxiixayn ku sugan wuxuu leeyahay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh inna fi ljannati baaban yuqaalu lahu rayaan jannada waxaa ku yaala albaab albaabkaasoo loo yaqaano albaabkii cokonaanta yadkhulu minhu asaa'imuuna yowma alqiyaama maalinka qiyaamaha waxaa ka geli doona dadkii alla dartii usoo soomanaabaa ka geli doona markaasaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi waxaa loo odhanayaa laa yadkhulu minhu axadun kayrahum saa'imiintii cidaan ahayni ka geli mayso albaabkaa ka geli mayso waxaa loo odhanayaa yuqaalu ayna asaa'imuun waraaway dadkii alle dartii u soo soomay aaway dadkii alle dartii haraadka iyo diifta u adkaystay aaway dartii alle dartii subxaana wa tacaala shahwaadkoodii iyo qariisadoodii jinsiga ahayd inay gutaan ilaahay dartii uga tegay subxaana wa tacaala ayna asaa'imuun fayaquumuun way istaagayaan nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi فيدخلون لا يدخل أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد فالنبي يقول صلوات الله وسلام عليه مركي استاغان الله يرو أيقنا يرتانك أي أقبلان أي البابكي لغا قلنا يا مركي لغا قليو بالحري البابكي ciidan iyaga ahayna kama gelayso albaabka kama gelayso riwaayadka diinu sugayno riwaayada ibn maajah waxay leedahay man kana min as-saa'imina yadkhuluhu fala yadma'u ba'dahu abada ruuxi ahaa midkii soomanay alla dartii u sooman wuu ka gelayaa albaabkaas uu gelayaa dib dambena oon iyo haraad iyo diif uma arkay daal iyo diif iyo oonba waa reeb riwaayada nasaa'i waxay leedahay waman dakhalahu shariba waman shariba minhu laa yadma'u bacdahu abada ruuxii meesha ka galaa yacnii wuu ka cabayaa ruuxii cabitaanka meesha laga waraabiyana oon iyo haraad dambe dib uma arkayo لذلك
رواية ابن خزيمة يدرون وحيلة هاي فإذا دخل آخرهم أقلق كودا قيبتودا وقدام بيا مركا أي قلان أي الحري فمن دخل شرب ومن شرب لم يظمأ بعده أبدا روحي يعني قله هو كعبي روحي كعبانا مركا دب أميو ودب أمهراضيو أي يعني رواية أن أيلا ذحي وحكسوا النبي صلوات الله وسلامه عليه وتلمام يا صونكو إنه يهي عمل ككلية إلهي سبحانه وتعالى ولقوني نقضي وحا يعني أجرك إي أبالك لقسينا يعني روح كالي أوغي آني جرين إلا ألمه سبحانه وتعالى حمعناها كتسنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به عمل كستو ابن آدم كؤوسا ميو إساقا إسكالي إلا صونك موياني صونك أنيقو إيسوغنادي أنيقانا كأبا المرني رسول الله سبحانه وتعالى صادري أجرك روح مؤمنك صونك وكهل يهمؤك ملائكتي كتابة يقلنك قريسين مؤك الله عليه سبحانه وتعالى إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به صونك موياني صونك أنيقو إيسوغنادي أنيقانا كأبا المرندون والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث صونك وقاشان وقباد نار تلقى قبضو متكين مالك وصومن يحي مركا لقارو هذا الحمى يلقوي يعني كحدلين والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك الله النفتيد أي قعنتي سكوشرتان كدارتي روح صومن شيلك إيا حلبت أفكي سكوتالا إلهي سبحانه وتعالى أكتيس وحي كأدقون بدنته أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسكي عذرك مسكي قال لي يرحضو إيه جنة لغا حلو إلهي سبحانه وتعالى بالخير لطفك إيه إحسانك إيه سمفلك ونوغلي بني آدم كي ودبسن روح مركانو مدوح عنين علوشيس isbedel baa ku dhaca innaqaska caloosha ka soo baxayana nooc kale noqda jiilka iyo halabtaas yaani arab bishmaha ku yaala diif baa ka muuqata diifta nabigu sallallahu alayhi wasallam alayhi hadith al-qudsiga rabbiga uu ka warnay wuxuu leeyahay yaani waxay ilaahay agtiisa ay kaga udgoon badan tahay yaani cadarka miskiga leeyahay لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفضر فرح بفدره وإذا لقي ربه فرح بصومه لابد يربو فرح الروح الصوم مروح كفر يا مغرب كبرك قرحضه ودعضه أصدقوا يعني واجبك إلهي قتي حلك أو قتيب كفر حيا مرنا واجب كيسي أبال مرنتي سيبو هليايو وإذا لقي ربه فرح بصومه مركو ربي قال لكم المينا وحو كفر حيا صوم كيسي أيو كفر حيا حديث هو صحيح هل كاسبان درسي أن حلقة لبعض أنكسي ودي دونا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.